dowladda ayaa la sheegay inay soo saartay xeerka la dagaalanka iskaabulada wararku waxay igu soo gaadhayaan in xeerkaasi qabanayo qof kasta oo qaangaada oo doob gashaanti amaba garoob ah oo aan xilligan waxaase lahayn in lagu amray inay isguursadaan muddo 2 bilood gudahooda qofkii guursan waayana xabsiga loo taxaabayo amaba lagu xukumayo ganaax lacageed arrintaasi la yaab bay runtii igu noqotay balse cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatanba istuudiyaha ila jooga ayaa soo akhriyey wararka ku saabsan sheekadaasi gunteeda cabdixakiin saare waan dhowahay dabcan sheeka waa sheeka keentaaye sheekadan waxa weeye waa sheeka hadda uun cusub oo soo baxday haye dabcanna waxa weeyaan wax kale kuma saabsana waa arrimaha qoyska qisadani waxa weeyaan waa waddanka Burundi ee ku yaalla qaaraddaasi Afrika go'aan ba hal mar la soo saaray waxa la yidhi dhammaan dadka lamaanayaasha ah ee reer Burundiya ee aan qoys ahayn ama aan reer lahayn waa waxay haystaan muddo 2 bilood ah 2 bilood oo kaliya 2 bilood oo kaliya maxay haystaan bal isuu maxaa la yeelaya 2 bilood haystaan 2 bilood oo kaliya ta waxa loo qabtay inay ku guursadaan reer ku sameeyaan marka halka ay joog cabdixakiino waa dadkii doobintii gashaantimaha ahaayee aan hore soo guursan iyo sidoo kale dadkii carmalkii ama laga dhintay qof kasta oo reer Burundiya oo aan reer lahayn ama aan qoys ahayn oo ama aan isaga la qabin ama wax qabin ama aan reer lahayn waxa lagu soo rogay markan waxa la yiri 2 bilood buu haystaa waa in 2 bilood gudahooda ku guursado hadii ba timi marka 2 bilood qofku ku guursan waayo waxa la yiri qofkaas wuxuu waajihi doonaa ciqaab ay ka mid tahay maxaan ku raada xarig ama jeel la geeyo sheekadani sahray waxay timi qaar kamid ah warbaahinta ka soo baxayeen qaaradda Afrika ama wadamada inta badan wadamadaas aad looga akhrista ayaa qoriyay waa sheeko bariyahanba aad la isugu dhexmarayay sheekadan waxayna imanaysaa in sharci kale isaguna aad isagana looga dooday oo madaxweynaha waddankaasi Burundi Pierre Nkurunziza uu bishii May ee sanadkan 2017 soo saaray kaasi uu bulshada ku boorinayo inay isjeclaadaan isku dhawaadaan qoysas sameeyaan isla markaana waddanka jeclaadaan dabcan waxaana arrinkan xaqiijiyay oo si rasmi ah isaga laftirkiisa uga hadlay wasiirka arrimaha xuquuqul aadanaha ee waddankaasi oo lagu magacaabo Martin Nivyabandi waxaana uu sheegay isla markaana uu digniin u diray cid kasta oo aan reer ahayn ama aan qoys ahayn oo guursanin inay waajihi doonaan sanadkan dhamaadkiisa ciqaab iyo waliba waxaan ku idhaahdaa iyo maxkamad haday amarkaasi fulin waayaan waan gartay cabdixakiino 2 bilood waa muddo kooban waa 60 cisho amarku maynamadun buu ku socdaa waxa leeyahay namadu waa inaad hablaha guursatiin mise maca hablaha amar baa ku socda dabcan sahray arrinkaasi cid gaar ah khuseynaya oo ama dumar ama rag ma jirto dhammaan baa leeyahay waxa weeye dadka reer Burundi marka taa macnaheedu waxa weeyaan in ragina uu saameynayo dumarkiina uu saameynayo labadoodaba waa wada saameynaya dabcan waana ka hadleen oo bulshada reer Burundi qaarna way soo dhaweeyeen xeerkan ama sharcigan qaarna way ka soo horjeesteen dadka inta badan ka hadlay amaba dareenkooda ka falceliya waxa kamid ah dadka community-ga ama bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaasi gaar ahaan waliba kuwa ka midka muslim community-ga East African community qolada la isku yiraahdo ama bulshada isugu bahaysatay bariga Afrika waxay sheegeen in arrinkani uu ka hor imanayo diinta Islaamka laakiin se muxuu ka hor imanayaa baad u malaynaysaa saaray haye si kale ma saaray waxay yiraahdeen waxay ku doodayaan dadkani maadaama qofkii ninkii muslimka ahaa la ogol yahay in hal xaas wax ka badan uu guursan karo 2 guursan karo 3 guursan karo 4 guursan karo sharciga uu sheegayo in ninkii hal gabadhoon uu diiwaan geliyo uu qabo waxay ashqaasanku anaga xabad bana lagu soo koobay maxaa dhacay diinteedu wax ka badan bay noo gashay marka waa muslimiinta reer Burundi qoladii muslimiintii bal horta kamid qaba ee labada iyo saddexda doonaya halka hay joogay waxa igaga yaab badan kuwan la raafayo marka ma qof kasta ayuu sharcigu ku waajibayaa mise dadka hablaheey iyo namadii iskuursan lahaa laakiin xogaa waqtigan diyaar aan ahayn uu ka soo yara habsaamay ayaa la doonaya inay degdeg isku guursadaan haddii se la doonayo in qof kasta guursado cabdixakiino yaa kharashkii ka bixinaya dee dad badan baa dhaqaalaha dartii uu guursan le dadkaa dawladdu maxay ugu tala gashay horta sahray cid gaaroo la cayimay ma jirto sharcigani ma odhanayo qoladaa gaarkaabaa guursanaysa qoladaa gaarkaana waa laga qaaday waa si guud ahaana buu sharcigan u sheegayaa in cid kastoo reer Burundiya ay ku waajibayso marka la yiraahdo xagga kharashka oo kalena dawladdu ma cayimin in wax ka bixinaysa ama ay taageerayso wasiirkan hadlay oo kale kama hadal laakiin go'aankii amarka uu sheegay laakiin way cabanayaan waxay leeyihiin
way nagu adag tahay inaanu iska bixinno kharashka ku baxaya arooskii inaanu iska bixinno maxaan ku idhaha xafladda kharashka ku baxaya iyo weliba guurka iyo kharashkiisii hawshiisa iyo gurigiida iyo biilkii diyaar uma nihin marka waxaan filayaa mar haddii dawladdu mar haddii amarkaasi maxaan ku idhaahdaa soo saartay inay hawsheedii iyo weliba taageeradeediina inay daba wadun baan filaya waan gartay haddiiba markaa dadkii isguursadaan oo iyagoo sharcigan ka cararaya 60 cisho gudahood rag iyo dumar aan israbin intiisa soo qabtaan una isguursadaan oo hadhow khilaaf iyo mashaakil dhexdooda ka dhaco horta saara khilaaf waa dhacaya wayna daanweynay dabcan waa la wada hadlaya waana khilaaf waa imanaya jaarka ma ka soo guursan karaa mise wadankoodu bay ka guursanayaan iyagaas ku filan baan filaya